kulanti waxana wanaagsan idin ahaantii Daawo ku soo dhawaada qodobada ugu doorkaran warka raadiyaha Wadaag qodobadaasna waxa kamid ah ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Ethiopia ayaa gaaray xadka labada dal ee wadaagan ee hore ugu dagaalameen maleeshiya beeleed hal degdegana xilligan in laga gaaro la qorsheynayo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay bandowga hadda socda in isbedel lagu sameynayo hadii la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan Puntland ayaa deegaanadeeda howlgallo ay ka sameysay waxay ku soo qabqabatay qaad fara badan waana la gubay Puntlandna waxay dagaal ugu jirtaa ka hortaga qaadkii qamriga oo si xawli ah deegaanadeeda u galaya Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ah wasiirka koowaad ee dalka ayaa ka hadlay arrimo la xiriira COVID-19 oo si tartiib wadanka ugu faafaya maamulka Hirshabeelle qoraal ayaa ka soo baxay oo ku aadan in la joojinayo dulimaadka gudaha sabab la xiriira COVID-19 wasaaradda awqaafta arrimaha diinta ayaa sheegtay in sameynaysa xarumo lagu ururiyo sakawaadka si loogu taakuleeyo dadka liita xilligan World Health Organization WHO waa hay'adda caafimaadka adduunka ayaa digniin ka soo saartay cudurka COVID-19 warkii oo idinkaga imaanayay radio Wadaag wanaga inta wada ku maasantii la socodka ila jaanqaadka warkayaga